maxaa ka soo kordhay xiisadda ka taagan gobolka geeska Afrika dadaalada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayso inay ku badbaadiso wadajirka iyo madaxbanaanida qarankeeda ayaa haatan gaaraya meeshii ugu sareysay dhinaca kale Israa'iil waxa ay doonaysaa in ay suuqayso aragtida ay ku aqoonsatay Somaliland oo kamid ah gobolada ku yaala waqooyiga Soomaaliya hardan xoog leh ayaa soconaya xilligan aan idin la hadlayo dadaalada diblomaasiyadeed ay dhinacyada kala duwan bixinayaan dawladaha ku yaala gobolka geeska Afrika qaarkood wali ma qaadan go'aan dhameystiran oo ay si rasmi ah mowqifkooda banaanka ugu keenayaan dawladda Shiinuhu waxa ay bilowday dhaqdhaqaaqyo adag oo ay kaga hortagayso damaca Israa'iil kulamo xasaasi ah oo kala duwan ayaa ka dhacaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta kulan gaar ah yeelanaya iyo waliba Florida uu gaaray oo Mareykanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagoo la kulmaya madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump dhinacyada gobolka geeska Afrika ku hardamaya waxa u muuqanaya inay haatan gaarayaan meeshii ugu adkayd muxuu yahay dalabka dawladda Turkigu ay hor dhigtay Muqdisho ee ku saabsan sidii arrimahan wax looga qaban lahaa Israa'iil maxay ka faa'iideysaa Somaliland marka la fiiriyo aqoonsigan ay ku bixinayso xiisaddu xitaa waxa ay ka gudubtay gobolka geeska Afrika oo bariga dhexe ayaa looga soo hanjabaya Soomaaliya ikhtiyaarta inala socota ay soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay iyo waliba taxliilin ku saabsan xaaladda gobolka geeska Afrika halista madaxbanaanida ee wajahaysa Soomaaliya iyo waliba arrintan sida dadka qaar ay u fasirayaan meesha ay ku dhamaan karayso haddii dadaalada kala duwan ee la bixiyo ayaan ku eegayaa barnaamijkan wixii ka dambeeyay markii nidaamka Israa'iil ee bariga dhexe jooga uu ku dhawaaqay in Somaliland oo kamid ah gobolada waqooyi ee Soomaaliya uu aqoonsaday jamhuuriyad madax bannaan waxa ay xaaladda gobolka geesku u noqday mid xasaasi ah waxay u muuqataa in dagaal wakaaladeed loo soo xawilay dhulkan oo muddo dheer la daaladhacaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeeyeen dagaallo wajiye kala duwan lahaa loolanka u dhaxeeya dawladaha adduunka ayaa bartan ay ku taala Soomaaliya ee ah mandiqada istiraatiijiga ah ee ah albaabka laga galo ciriiriga Baabilmandab iyo channelka Suez badda Carabta iyo badda Casba waxay u arkaan inay tahay muhiimad gooni ah marka loo fiiriyo dhinaca ciidamada siyaasadda ganacsiga adduunka iyo saameynta ciriiriga Baabilmandab oo Soomaaliya ay albaabkiisa ku taalo 30 kamida dhaqaalaha iyo waliba ganacsiga adduunka ayaa mara taasina waxay noqonaysaa mid si gaar ah u soo jeedinaysa goobtan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu bixinaya dadaalo adag oo diblomaasiyadeed madaxda uu la hadlana waxa kamid ah Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga oo gaashaanbuur la ah Soomaaliya marka la fiiriyo xiisadan hadda taagan iyo loolanka Israa'iil ay ku hayso Soomaaliya Turkiga oo ah wadanka ugu awooda badan ee gobolka bariga dhexe ku yaala sidoo kalena ka tirsan gaashaanbuurta NATO ahna wadanka ugu askarta badan marka laga yimaado Mareykanku waxa lagu soo waramayaa madaxweyne Xasan Sheekh inuu hor dhigay laba doorimaad oo kala duwan waa mare in la ballaariyo heshiiska Turkiga ee xagga militariga uu kula jiro isla markaana xeebo ku dhow badda cas laga siiyo saldhigyo ciidamada Turkigu ay halkaasi degaan si ay uga hortagaan faragelinta Israa'iil iyo loolanka ay ku sameynayaan wadanka Soomaaliya iyo faragelinta ay ku hayaanba haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaato soo jeedinta Turkigu waxay noqonaysaa sida qubarada qaar ay ku tilmaamayaan arrintan in xiisaddu ay si adkaan karayso Soomaaliyana ay heli karayso mid kamid ah wadamo si adag u difaacaya oo Turkiga laakiin Israa'iil ayaa qudheeda Somaliland u bartilmaameedsanaysa laba arrin oo kala duwan waa mare waxa ay doonayaan in ay saldhigyo ka helaan qaybo kamid ah ee Somaliland isla markaana halkaasi ay ka sameeyaan sahmin ay ku ogaan karaan badda cas iyo waliba dhaqdhaqaaqyada military ee kooxda Xuutiga iyo in ay halkaasi ka sameyn karaan duqeymo marka la eego kilometriska yar ay u jiraan goobtaasi goobaha Xuutiyiintu ay joogaan
ayaa tani waxay noqotay mid si gaara saameynteeda u muuqanayso. majalada macaarif lagu magacaabo ee Israel leedahay waxa ay saacadihii la soo dhaafay ay qoraysay in sababta ugu ballaaran ee Israel ay Somaliland u doorbidayso inay markan aqoonsatay ay tahay in marka ugu horeysa ay isticmaasho hawadeeda iyo sidoo kale inay kala socoto dhaqdhaqaaqyada badda cas saldhigyo halkaasi ay ka samaysan karayso. marka la fiiriyo xiisadu waxay u muuqataa inay ku salaysan tahay juqraafi siyaasadeedka, laakiin Somaliland ayaa marka laga yimaado inay helaysa aqoonsi aanan la ogeyn ilaa iyo hadda waxyaabaha sida gaarka ah ay halkan Israel ay uga faa'iidi karayso. waa mare waxa ay wajahaysaa Somaliland culeysyo amni oo ballaaran iyadoo xuutiyiinta gaar ahaan hogaamiyaha kooxda xuutiga ee wadankaasi Cabdimalik al-Xuuti uu ku dhawaaqay in haddii Israel ay timaado Somaliland ay qaadi karayaan tallaabooyin military oo halkaasi ku wajahan, taasi oo amniga gobolka Qatar weyn ku ah. marka la fiiriyo tallaabooyinkan Somaliland ay qaadanay u soo jeedi karaan xaalado qalqal gelin kara jiritaanka nolosha iyo amniga deegaanadaasi. intaa waxaa dheer in Israel ay sidoo kale leedahay waxaynu halka ka samayn doonaa sahan hawada ah oo diyaaradaha ciidamadeena ayaa suuragala in hawada Somaliland ay isticmaalaan. ku darso Soomaaliya waxaa hawadeeda laga maamulaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, waxaana gacanta ku haysa hay'adda duulimaadka rayidka oo in muddaaba Somaliland iyo Muqdisho ay ka wada hadleen sida arrintan xal loogu heli lahaa. Hargeysa dhowr goor oo kala duwan ayay ku dooday in hawada Soomaaliya maamulkeeda la geeyo Hargeysa oo heshiisyadii wada hadalladii labada dhinac dhex maraya ay qayb ka ahayd. hase ahaatee Muqdisho in badan ay ka dhagaadeegtay, laakiin hadda ay u muuqato miro dhalkii arrintaasi inay hayso. dhinaca kale dowladda Turkiga waxa ay doonaysaa in la dardargeliyo dhismaha saldhigyadii ay ka diri lahayd dayax gacmeedyada, isla markaana goobahaasi oo ay ku soo dhawaadeen kooxaha argagixiso tillaabooyin wadajir oo isku dhafan ay qaadaan Turkida iyo Soomaalida labadaba. arrintani waxay hortaallaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. haddii aan sii eego xiisadan iyo waliba saameynta ay leedahay, saacadaha soo socda golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxeeya ayaa ka arrinsan doona xaaladan ka taagan gobolka Geeska Afrika iyo tallaabooyinka ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ku dhaqaaqay. kulan heerkiisa uu aad u sareeyo oo ay ka soo qayb geli doonaan 15 xubnood ee golaha amniga ayaa waxaa dhex fadhiya Soomaaliya oo markan ashtaka ka Israel. waxyaabaha miiska la soo saari doona waxaa ka mid ah in Soomaaliya ay wajahayso ku xadgudub madax banaanideeda ah iyo kala qaybinta dhulkeeda, taas oo qayb ka ah ku xadgudubka qaanuunka caalamiga ah iyo isxaq dhowrka dowladaha kala madaxa bannaan. kulankan waxaa fadhiya laba awood oo mid kasta ay aragti aaminsan yahay. waxaa fadhiya Mareykanka oo aan la ogeyn mowqifka uu qaadan doono, laakiin danjiraha Mareykanka ku matala qaramada midoobay Mike Waltz waxa uu hore u dhaliilay Soomaaliya oo bisha January koodeeda la wareegi karaysa ama la wareegaysaba sida uu qorshe u yahay gudoominta golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo meertadan ay Soomaaliya leedahay. marka la fiiriyo kulankan waxaa sidoo kale qayb ka ah oo jooga dowladda Shiinaha oo u aragta caqabad weyn in ay ku tahay tallaabooyinka Israel ay qaaday marka lagu akhriyo xaaladda Taiwan. madaxweynaha wadanka Eritrea Siyaasa Fawarqi ayaa shalay war ay soo saartay wasaaradda amuraha dibadda ee wadankiisa Eritrea. dowladda Shiinaha lagu yiri waa inaad qaadaan tallaabo gorgorinta Soomaaliya ka taagan. ujeedadooda waxay tahay fariin ku dhacaysa Taiwan oo ay muhiim tahay Beijing si degdeg ah inay uga jawaabto. haddii Soomaaliya ay kulankan golaha ammaanku ay isugu imaanayaan ay ku guuleysato, waxay ka dhigan tahay in Israel ay wajahayso jab diblomaasiyadeed oo degdeg ah. waase haddii Mareykanku uu mowqif cad qaato oo dhinaca Soomaaliya uu ag istaago, ama in uu ka aamuso oo qudheeda xiisad adag yeelanaysa. haddiise uu diidmada qayaxan uu isticmaalo ee veto, waxay ka dhigan tahay tani Muqdisho inay ku guuldarraysatay qaybo ka mid ah galaangalkii diblomaasiyadda ee la doonayay. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa haatan ku sugan gobolka Florida ee dalka Mareykanka isagoo la kulmaya
madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump waa kulan xasaasi ah oo marka laga yimaado arrimaha Falastiiniyiinta iyo ka hadalka wajiga labaad ee heshiiskii Sharm el-Sheikh xiisadu ay si weyn indhaha ugu hayaan wadamada adduunka xaaladda gobolka Geeska Afrika oo markaan noqotay furan cusub oo dawladuhu ay isku wajahi karaan inkasta oo Trump uu hadalkiisa hore uga sheegay wargeys ka soo baxa New York oo uu yiri xilligan diyaar uma nihin inaan aqoonsano wax la yiraahdo Somaliland haddana galaangalka uu Netanyahu samaynayo iyo wararka ka soo baxaya wasaaradda amuraha dibadda ee nidaamkiisu waxa ay muujinayaan in dadaal badan ay ku bixin doonaan sidii aragtidaasi looga miran dhalin lahaa Trumpna arrintaasi looga xodxodan lahaa qudhiisa Trump saddex mushkilad oo waaweyn ayaa hortaala waa mare waxaa hor yaalla Turkiga oo qadiyadan aragti cad ka aaminsan Soomaaliyana faraha kula jira naatana ay iskala tirsan yihiin Shiinaha oo arrinta Taiwan u arka inay tahay mid Soomaaliya lagu gorgorinayo oo haddii halkan tilaabo loo soo qaado ay macnaheedu noqon karayso in dagaalkii la qorsheynayo 2027 inay Taiwan ku qaado Beijing uu soo degdegi karo waqti ka horeeya waqtiga la filayay Taiwanna waxa ay ka mid tahay wadamada jiibka warshadaha u baahan yihiin reer galbeedka aadka u soo saara marka waxa uu Trump suuragala inuu ka baqdo dagaal ku soo degdega Taiwan haddii arrinta Israel iyo Somaliland uu garab siiyo arrinta kale oo saddexaad waxa ka mid ah xiisada gobolka Geeska Afrika oo isbedeli karaysa ilaa iyo hadda waxa jira dawlado arrintan si gaar ah u eegaya kulanka ka dhacaya Florida iyo kan golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay yeelanayaan waa mare dawladaha Kenya iyo waliba dalka Ethiopia oo xiriir sukan la leh Soomaaliya iyo Israel labadaba waxa ay qaateen mowqif aamusnaana iyagoo eegaya balse ciyaartani ay isku bedesho dhinaca kale dawladda isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa noqotay wadanka kaliya oo Carbeed oo aan mowqifkiisa si dhameystiran u cadeyn Imaaraadku waxa lagu eedeynaya waayidii ugu dambeysay arrintan in ay ku lahaayeen galaangal kale oo xoog leh wararka soo baxaya waxa ay tilmaamayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu isugu yeeray inta badan aqoonyahanka Soomaalida ee uu ku ogyahay aqoonta diblomaasiyadda si ay qayb uga noqdaan arrintan difaaca madax banaanida qaranka ah ee Israel ay ku soo qaaday sida dawladda Muqdisho ay ku doodayso xilligan dadka sida gaarka loogu yeeray waxa ka mid ah dadka arrimaha amniga muddada dheer ka shaqeynayay iyo dadka siyaasadda diblomaasiyadda aadka ugu dhex jiray muddada dheer inkasta oo barnaamijka Barrow Show qaar ka mid ah dadka la casuumay ay u sheegeen inay Muqdisho sii gaareen haddana waxaa jira khubaro kale oo muddo dheer ka shaqeynaya wasaaradda amuraha dibadda kiisas fara badan oo diblomaasiyad xalliyana in aan wali loo yeerin kuwaasi oo markan eegaya bal xaaladdu waxa ay ka geysan karaan sida ay tilmaameen waa kulushahay xaaladda gobolka Geeska Afrika madaxweyne Xasan Sheekh safarro ayuu qorsheynayay inuu ku baxo saacadaha soo socda ujeedadu waxay tahay arrintan go'aan dhameystiran in laga qaato maamul goboleedyada qaar ee Soomaaliya ah wali go'aan ma qaadan inkasta oo madaxweynaha qaarkiis ay dadka u jeedinayaan dhaliil siyaasadeed oo weyn oo la leeyahay waa uu ka tanaasuli lahayaa waxyaabihii mucaaradku ay hor dhigeen si cod midaysan oo Soomaaliyeed oo ku saabsan arrimaha badbaadada qaranka loo helo waxyaabaha kale oo indhaha lagu hayo waxa ka mid ah khiyaarta ay nala socotay arrinta diblomaasiyiinta Soomaaliya ku matalaya caalamka warar aynu helayna waxa ay tilmaamayaan safiirkii Soomaaliya ku matalayay ee dalka Hindiya in loo yeeray in uu wadanka ku soo xaroodo lama oga waxyaabaha ka dambeeya u yeeritaankiisa laakiin waxa la leeyahay waxay u badan tahay xiisadan in ay ku leedahay ama u yeeritaankiisa ay qayb ka tahay oo dadka qaar ay isaga tuhmo u jeediyeen inkastoo aan si madax bannaan u xaqiijin xiriiro kala duwan oo aan isku daynay inaan la sameynana aan noo suuro gelin in aan wali helno hase ahaatee dawladaha waaweyn ee adduunka iyo galalka safiirada Soomaaliya ayaa la baarayaa ee Soomaaliya ku matalaya adduunka kaalintan bal waxay ka galaan markan madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu dareemayaa in safiirada adduunka loo diraya ay noqdaan kuwa macno leh oo wax soo kordhin kara aad baad u mahadsantihiin wararka